maxkamadda sare ee Somaliland ayaa maanta soo gabagabaysay ka garnaqa dacwad muddo 40 sano ah ka socotay maxkamadaha dalka taasi oo u dhaxaysay laba dhinac oo isku hayay dhismo ku yaala bartamaha magaalada Hargeysa. kulanka natiijada dacwadani lagaga dhawaaqay ayaa waxa gudoomiyaha maxkamadda sare ku wehelinayay guddi dhexdhexaadineed oo gudoomiyuhu hore u diray iyo sidoo kale labada dhinac ee dacwadu ay ka dhaxaysay. gudoomiyaha maxkamadda sare garyaqaan aadan xaaji cali axmed ayaa ugu horeyn ka waramay dacwadani muddada dheer soo jiitamaysay ee ay soo gabagabeeyeen. gurigaasi wuu dhamaaday xalkiisu tilmaamaha iyo jihooyinka mucaayana la wada yaqaano masjaamaca koonfur galbeed ka xiga maxkamadda uma xayirna waa la iibinayaa iibuu yaalaa waa maanta laga bilaabo maxay hayday wuu fasaxayn murankiisana wuu soo afjarmay. guddi madax bannaan oo maxkamaddu hagayso ayaana iibin doonta haddii la yidhaahdo oo sida lagu heshiiyey dhinacyaduna way heshiiyeen waanu uga mahadnaqaynaa. maxkamadeedan sarena waqti badan baanu gelinay sababtaa waxyaalahaanu halkan dadka u fadhino waxaa ka mid ah in dadka la caawiyo oo dadku kala baxaan oo ay noloshoodii ku noqdaan oo wanaagsanaadaan ayaa ay ujeedadu tahay. waayo dacwadani waa dacwad loo maaro waayo loo taag waayey markaa sidii qolooyinkii hore iyo dadkii isku dayay baanu anaguna meel ku qufuli lahayn intaanu kabar ku qufulin baan lahayn sootii 40 sano qufulay waxaa naga soo doontay way sii qufulin laakiin waqti badan baanu gelinay si uu soo afjarmo. halkan waxaan uga mahadnaqayaa dhinacyadii aqbalay go'aankii ay guddigii suluxa soo jeediyeen. dhowr sano aan wadnay markaa 16kii ilaa maanta waxa ka dambeeyay waa 4 sano. 4 sano maalmo meel baa la istaagay. marka ugu horeysa marka waxaan ugu mahadnaqaynaa in suluxii ay aqbaleen dhinacyadu oo isu tanaasuleen. waliba maanta dadka aan sheegay waxa ka nool Yuusuf baa ka nool oday Yuusuf bay nala jooga Yuusuf Faarax oo intaba odayo wada ah ma garanaysaa maanta mas'uuliyadii wada haya. dhinacii kale waxa jooga caruurtii uu dhalay Maxamuud Cabdilaahi Qaalib Diir Qaraad. marka koowaad ma hadda iyaga leh waayo way aqbaleen. mar labaadkan waxaan u mahad celinaynaa guddiga odayaasha ee salaadiinta leh ka qayb galay arrintaas maxkamaddu u saartay oo arrinta maanta Ilaahay ku guuleeyay oo aynu ka wada qayb galayna iyaguna mahad bay leeyihiin. waxa iyaguna dhinacooda halkaasi ka hadlay guddigii dhexdhexaadka ka ahaa arrintaasi iyo sidoo kale labada dhinac ee dacwadani isku hayay. waa ku dagaalanay dad baan ku leynay 60 qof baan laga xidho rag iyo dumar leh marxalad badan bay soo martay runtii taadaba 28 bay ka bilaabatay arrintii iyada ahayd waxa soo socotaba horta gudoomiyaha iyo guddidii u diray walaashii biroga dhig waxayna anaguna waan aqbalay qolada Maxamuud ka tirsanayd marka Maxamuud aqal jira ilaahay xaristiisa asiye xaristiisa way joogtaa way aqbaleen anaguna waan aqbalay. waxaan maanta laga bilaabaa anoo ilmo Maxamuud Cabdilaahi iyo labada reer isku dhinacay la dhahay reer Yuusuf Dheere iyo ilmo Shaambiyo isku dhinaca waxaanu qaadanaa oo aqbalay dacwadii sida lagu soo xiray inaanu qayb lagu qaybiyo iyaguna ay qayb noqdaan ay qayb qaataan anaguna aanu qayb qaadano. sida gudoomiyaha maxkamadda sare sheegay arrintaasi iyadoo dhinac maxkamadii ka socdaan buu go'aamsaday inuu suluxa dhinac kaga dayo. odayaasha halkan fadhiyaanu ka mid nahay ee sulaadiin iyo cuqaal bale oo 6 xubnooda ayuu noo yeeray gudoomiyuhu wuxuu nagu magacaabay inuu arrintaas noo diro. aad baan ugu mahad celinaa gudoomiyaha. runtii gurigii oo runtii muddo dheer saa la sheegay oo 50 sanadood ka badan dacwadiisa socotay oo ayada oo ku soo dhamaatay sulux dhammaan waan u mahadnaqayaa labada dhinac waan u mahadnaqayaa. iyo walaalnimo lagu soo dhistay labada dhinac aad iyo aad waxay ugu mahadsan yihiin inay iyaguna sidii u soo dhameeyeen marka aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Siciid Aadan Jaamac Television Koon Cable Hargeysa. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.